Maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah mawduucyada aadka ugu muhiimsan ee ku jira buugga loo yaqaan Atomic Habits-ka, kaasoo ka hadlaya procrastination-ka ama dib u dhigista. Maxaa keenay in qof fahmi sare leh, aqoon leh, isla markaana raba isbeddel dhab ah inuu gaaro, haddana uu ku fashilmo inuu fuliyo ballamihii naftiisa uu ka qaaday? Waxay dadka badankoodu ugu dhacaan dabinka dib u dhigista ama procrastination-ka xilli ay si dhab ah u ogyihiin in ficil la'aantu ay burburinayso mustaqbalkooda. Jawaabtu ma aha daciifnimo xagga dabeecadaha ama doonista qofka, ee waxay ku jirtaa maskaxda ka dambeysa ficiladeena maalinlaha ah. Maanta waxaynu halkan ku falanqayn doonaa fikradaha mid ka mid ah khubarada ugu caansan ee dhanka dhismaha caadooyinka iyo isbeddelka habdhaqanka bini'aadamka. James Clear waa qoraaga ka dambeeya buugga caanka ah ee Atomic Habits, kaasoo noqday mid ka mid ah buugaagta ugu iibka badan dunida isagoo gaaray in ka badan 25 milyan oo nuqul. Sida James uu yiri, dib u dhigistu waa doorashada inaad dib u dhigto mustaqbalkaaga wanaagsan. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa roadmap-ka aad ku qaabeynayso noloshaada iyo shakhsiyaddaada. Kaabayaasha qarsoon ee nolosha. Caadooyinku ma aha kaliya waxyaabo aan si joogto ah u qabanno, ee waa invisible architecture ama naqshad qarsoon ee qaabaysa jihada nolosha qofka. James waxa uu aaminsan yahay in dhibaatada dadka haysata aysan ahayn lack of discipline ama dib u dhigid dabiici ah, balse ay tahay nidaamka qofka ku shaqeynaya oo khaldan. Dib u dhigistu ma ahan kaliya waqti lumis, ee waa go'aan qofka ku dooranayo inuu dib u dhaco mustaqbalkii wanaagsanaa uu heli lahaa. Haddii aad rabto inaad beddesho natiijada, waa inaad marka hore hagaajisaa waxyaabaha aad maalin kasta ku quudiso maskaxdaada iyo jirkaagaba. Falanqaynta toddobada tiir ee isbeddelka. Falanqaynta waxay ku saleysan tahay 7 qodob ee ugu muhiimsan ee James Clear oo ku soo bandhigay cilmi nafsiga habdhaqanka. Ficilku wuu daweeyaa welwelka. Action reveals anxiety. Marka uu qofku ku jiro marxalad fikir iyo falanqayn badan, dhibaatada waxay ku muuqataa mid weyn oo cabsi leh. Balse tallaabada ugu horreysa ee yar ee aad maskaxda u dirtaa fariin ah in xaaladda gacanta lagu qabto, taasoo isla markiiba hoos u dhigaysa heerka welwelka. Tusaale, qofka markii uu shaqada bannaanka ka joogo, wuxuu dareemayaa cabsi badan oo aanu shaqadan qaban karin ama uusan ka soo bixi karin. Balse markii shaqadii gacanta la galo oo uu bilaabo shaqadii, wuxuu dareemayaa welwelkii faraha badnaa inuu ka yaraanayo, taasoo keenaysa qofka marka uu shayga qabanayo in uu yahay mid aad ugu fudud. Caadooyinka ku dhisan aqoonsiga identity-based habits-ka. Tani waa qaybta ugu muhiimsan. Isbeddelka dhabta ah ma aha waxaan rabaa inaan qoro buug, ee waa inaad tiraahdaa waxaan rabaa inaan noqdo qoraa. Marka aad aqoonsigaaga beddesho, caadadu waxay noqonaysaa mid si dabiici ah u dhalata. Ficil kasta oo aad qaaddo waa codayn, oo aad u codaynayso qofka aad rabto inaad noqoto. Guusha iyo guuldarrada. Sirta guusha waa inaad taqaanaa sida loo guuldarreysto. Waa inaad ogolaataa caadooyinka inay la jaanqaadaan marxalad kasta oo aad noloshaada joogto, adigoo og inay jiraan waqtiyo adag oo u baahan kaliya inaad dhex marto. Nidaamyada iyo yoolalka. James wuxuu ku celcelinayaa in aan ku kicin heerarka yoolalka, balse aan ku dhacno heerarka nidaamyada. Nidaamku waa mashiinka soo saara natiijooyinka. 1% rule. Haddii aad maalin kasta horumar sameyso 1%, dhammaadka sanadka waxaad noqonaysaa 37 jeer ka wanaagsan sidii aad ahayd. Tani waa awoodda maalgashiga muddada dheer. Ha eegin natiijada maanta, ee eeg jihada aad u socoto. Nashqadeynta deegaanka ama waxa loo yaqaan environmental design. Tani waxay ka qayb qaadanaysaa inaad noqoto qof horumar badan sameeya goobta aad ku nooshahay ama deegaankaaga. Haddii aad rabto inaad caado wanaagsan bilowdo, yaree carqaladahaaga. Haddii aad rabto inaad mid xun joojiso ama caado xun aad joojiso, deegaanku waa midka kuu fududeynaya go'aankaaga saxda ah, ee mar walba soo saaraya inaad noqoto qof natiijo sare gaara. Gabagabadii, isbeddelku ma aha wax ku dhaca habeen qura, mana aha mid u baahan awood mucjiso ah. Dhibaatadu ma aha inaad tahay qof tabar daran ama aan dhab ka ahayn isbeddelka uu doonayo inuu higsado. Dhibaatadu waxay tahay inaad ku shaqaynaysid nidaam khaldan. Marka aad fahanto caadooyinkaaga ay yihiin maalgashiga ugu weyn ee aad samaysan karto mustaqbalkaaga, waxaad ogaanaysaa in tallaabo kasta oo yar ay qiimo leedahay.